saarayaan war adigoo galmaa xaseed ku taageeraysaa wacbuudhan intiisa kale wacbuudhanay 10 xaba ka dhigayaan harti abgaala dhuunta isugu jira waxaad arkaysaa marka maalinba kooxa isku dhigan haddaad isku duuban tihiin waan idin garab istaagi karaa laakiin idinkoo isku duuban ayaan idinka rabaa inaad i tustaan diyaaraan idin ahay dadku waxay leeyihin maxaa adiga dadku mogtaa dadka waxaa jira aqligooda uu aad u liito waana idiin sheekeynaya iga raali ahada waa idiin sheekeynaya dad baa aqligooda xoogaa uu fooraraa mogta wuxuu ku leeyahay maxaa kaa galay ma daaroodaa tahay maxaa kaa galay SSC qaatum ma daaroodaa tahay daarood maa tahay ku sheegaa wax ka weyn siyaasadda ayaa aniga iyo SSC noo dhaxeeya wax siyaasadda ka weyn ma shii kartaa ma taqaanid waxaad ii malaysaa inaan anigu SSC Facebook iyo Twitter iyo TikTok iyo YouTube kaliya oo xiriirka SSC naga dhaxeeyo maya SSC waxaa naga dhaxeeya xiriir ka weyn media xiriir media ka weyn naga dhaxeeya darwiishnimadaydu maaha wax kale ee darwiishnimadaydu waxa weeye waa taariikh cad oo muuqda laakiin waxa dareemi kara qofkii wax garada qofka kale ma dareemi karayo wax garad markaan ku leeyahay micnaheedu maaha inaan wax kale ula jeedo muhiimadda waxay tahay darwiishnimadu waa xiriir Cabdullaahi Balwaan ka weyn midka aad meediyaha ku aragteen tusaale yar nin sidaa loo karaameeyanahay ma taqaanaa kursiga ugu sarreeya ee garaadnimada ninka lagu fariisiyanahay kursigii guusha ninka lagu fariisiyanahay aniga ma dhacday weli in kursigaasi inta lagugu fariisiyo sidan ay garaadadu ku karaameeyaan ma dhacday weli ma dhacday inuu mudane garaad mideeye garaad jaamac uu sidan kuu sharfo ma dhacday ma dhacday sharafta lagu sheegay waa taas karaamadaas ayaa naga dhaxaysa aniga iyo SSC kuma taageerayo dadka SSC ma ku jecel yihiin ma ku neceb yihiin maya maxaa ka weyn sharafka iyo sumcadda naga dhaxeeya dadkaas waxaan ku faanayaa xiriirka wanaagsan midka maanta jira inuu yahay waana ku faanayaa waan ahay waana ahaa doonaa intaas haddaad fahantay alxamdulilah haddaadan fahmina rabbil caalamiin dhulka ma booqan doontaa yes waa dhulkayga waa deganahay haddaad u malaysaan Cabdullaahi Balwaan salaanu ku tagay no waa deganahay anigu deegaankaygu waa SSC laascaanoodaan deganahay yes intaasaan ku faanayaa hambalyo saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan hambalyo munaasabadda aqoonsiga SSC qaatumo anigoo fursaddan ka faa'iideysanayo waxaan u mahad celinayaa cid walba oo qadiyadan igu taageertay cid walba oo taageersan SSC qaatumaan u hambalyaynayaa waxaan taageersanahay qadiyadda SSC oo hirgashay waxaan taageersanahay maamulkaasi oo hanan qaaday waxaan taageersanahay in maamulkaasi uu noqdo mid kamid ah maamulada dalka ka jira magaalada laascaanood waa ka sharaf badan tahay magaalooyinka kale been ma moodaan sida loogu soo cararay laascaanood maxaa loogu carari waayay maamulada kale ii sheeg ma taqaanaa sababta SSC qaatumo laascaanood sababta loo jecel yahay oo aan loo jeclayn maamulada kale ma taqaanaa carar waa kaa ra'iisul wasaaruhu markuu booqdo galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland puntland carha la soo raaco cid soo raacaysa ma jiro karaamada ay leedahay laascaanood meeshaas ka ogaada karaamada laascaanood ay leedahay meeshaas ka ogaada horta waa loo soo cararaa waxaa kaloo xusid mudan xalay waxaan arkayey war saxaafadeed ay soo qoreen xildhibaanadii isaaq ilaahay mahadiis halkan waxaan rabaa inaan si sharaf leh uga salaamo cid walba oo xalay go'aan ka qaadatay waxyaabihii la xarxariiqay war saxaafadeed looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya lagu diidan yahay aqoonsiga SSC qaatumo ilaahay wuxuu qadaray islaantii ugu mayalka adkayd xildhibaanada isaaq ma taqaanaa waxaa jirta qof ugu mayal adagaa jirto oo qadiyadda Somaliland u dhima jirta yaa waay ma taqaanaa gobson xildhibaanad gobson ayaa ka soo horjeesatay war saxaafadeedkii xalay mahdi guuleeda ka soo horjeestay horta ogaada dhulbahanta cid celi karta malaha negative cid celi karta haba yaraatee ma jirto cid kastoo isku bahaysata dhulbahanta waa ka adkaanaya
haddiiba xalay xildhibaanadii isaaq ay iyagu isdhabar jibiyeen meeshaas maxaa ka cad SSC qaatumo inay xaq u taagan tahay xaq conform waa ka xumahay shacbweynaha igu xiran waxaan ka xumahay inaanan xafladii xalay tegin mashquul isoo wajahay laakiin daqiiqad kastaba waan la socday xalaya ugu dambaysan waan la socday marka hambalyaan idin leeyahay xilligan waxaan life usoo galay hambalyadaas igugu weyn shacabkaygu waan idin jecelahay guulaysta waxaan rabaa dhulkaasi sharafta iyo cizada iyo karaamada leh aqoonsigiisa 100% barta u taagayan bar kasi fog ayuu gaari doonaa karaamada walaalahay aad u mahadsantihiin aniga SSC qaatumo qadiyad ummad Soomaaliyeed iyo xiriir soo jireena oo naga dhaxay doona ayaan u garab taaganahay mana ihi qof ku taageersan bara bulsho ama in lagu amaano maya waxa naga dhaxeeya xiriir weyn amaan iyo bogaadin midna kuma taageersan qofkii igu taageera iyo qofkii iga soo horjeesta xitaa aniga muhiim ma aha xiriirka naga dhaxeeya waa dhiig intaas ka badan waa fahamtay soo dhiiggaas qof jooga TikTok ama Facebook ama qof jooga hadduu alla ku idmaayo TikTok ama Facebook ama YouTube ugama tanaasubay waa dhiig SSC nimadaydu waa dhiiggaas marka waa dareemi kartaan awoodda uu leeyahay xaw maaha marka qof ka hadla iyo qof aniga iga faallooda iyo qof aan iga faalloon waxaa kaloo ogaataan saaxiibaday fayl dheer ku soo jiraan maxaa dhacay taqaanaa qof kasta wuxuu ku leeyahay jiritaanka SSC haddaan ogaan lahayn inuu sidaan u sharaf badan yahay mar horaan soo raacay maalintan dagaalka galay aniga maalinta guusha la gaaray ma ahayn maalinay baahashu dhanaanayd ayaan garab istaagay horta dadnimada taas ku ogaada waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo aniga u garab istaagay ciddii ugu dhalishay ciddii aan igu dhalilin maanta natiijadii guusha waan gaaray madaxweyne Firdhiye waan u hambaleynayaa waxaan kaloo rabaa inaan fariin u diro isaaq de wareer la ilaaha illa allah walaalayaal horta waxaan idinka rabaa saaka aanba iska xadgudbe waxaan idinka rabaa isaaqu jaad noocee ah iyo cunaan jaadka ay isaaqa cunaan ii sheega walaalayaal weligay dad aan u dhiga ma arkin marqaan waa dhaafeen waaliyay marayaan waali tii igugu qosolka badneed waxay ahayd mid isaaqa inta soo duubay muuqaal wuxuu yiri fariintan iga gaarsiiya walaalahay Soomaaliland fariintaasi waxay ku saabsan tahay sida aan dhulbahantay uga hortay karno la ilaaha illa allah haye wuxuu yiri si ay dhulbahantay u jabaan dhamaanteen waan isqaawinaynaa annagoo qaawan ayaan dhax cararaynaa kadib dhulbahanta xabadoo nagu dhufanaya ummadii aan soo gurmanaysa ee walaalayaal dharka aan dhigano oo aan isqaawino oo aan kadib dhulbahanta ku cararno libinta Somaliland maanta waxay maray aan waalanno markaan waalanno ayaan dhulbahanta ka adkaan karnaa 25 bishii August 2023 waxaan idin sheegay ayaan maanta ku celinayaa calaa casho tani ka soo baxday la mid tahay in dhulka SSC qaatumo isaaq dambe u maamulo hadda ma dhihin waxaan dhahay 25 August maantaan kugu celinayaa calaa casho tani ka soo baxday la mid tahay gabar intay ka nooshahay SSC qaatumo ma dhacayso in la maamulo dhulkaas qof aanan u dhalan ma maamuli doono waa go'aan cad oo hoosta ka xariiqan ogaada marka insha Allah hambalyo faalada kale waan idin soo wadaa insha Allah live-afka kale aan uga hadli doonaa hadda hambalyadaas aan idinku tala galay saaka xafiiskayga markaan imid waxaan qaatay inaan dadkayga u hambalyayo bahda ku xiran Facebook-gayga ilma adeer rayaal hambalyo SSC hambalyo Cabdullaahi Balwaan dhiiga waa dhiigii daraawishta dhiigaygu waa midkii daraawishta aniga SSC qaatumo waa dhiigayga waa ku faanaya waana ku faani doonaa waa guulaysateen waa guulaysanaysaan markastana caqabad naga hor imaan karto ma jirayso marka waxaan idin leeyahay gul iyo gobonimo hambalyo waxaan kaloo ku sheegayaa intaanan ka bixin barnaamijka ma laga yaabaa inay ka hortagaan dhulbahanto oo dagaal lagu qaado dhulka SSC qaatumo anigu awood kale isaaqu ma ogeyn dhuusamaad ku qabsanaysin dhuusalay ku qabsan kartaa wallahi awood aad dhulbahanta ku qabsan kartaa ma jiro karbaashkooda waa ii soo socdaa waxaan ka soo hadli doonaa live-afka kale laakiin hadda hambaliyaan usoo galay hambaliyo walaalahay SSC aad u mahadsantihiin waa guulaysanaysaan waa guulaysateen
waana idin hambalyaynaya SSC waa la aqoonsaday hambalyo saaxiibayaal waa ku faraxsanahay xafladda dabaaldega ayaan qayb ka ahay meel kastoo dabaaldegu ka dhacayo ayaan ku jiraa marka hambalyaan idin leeyahay waan idin jecelahay waan idin taageersanahay waan idin taageeri doonaa anigu wiil darwiishaan ahay darwiishnimadeedaan ku faanaa waa ku faani doonaa balwaan SSC waa dhiigiisa hadalkaas waa kuma cadda SSC waa dhiigiisa dhiigayguna ciyaar ma aha waxa weeye boqolkiiba boqol waay dhiigaygana beec ma aha balwaan waa dhiigga SSC qaatumo waa dhiigayga nabadgelyo subax wanaagsan maalin boqran maalin sharfan maanta waxay ila mid tahay kowda luuliyo 26 juun oo kale ila mid tahay 26 juun maalintii xorriyadda ayay ila mid tahay maanta darwiishnimadu way jiraysaa wayna jiri doontaa intaas meel ku qorta sharaf baad leedihiin iyo karaamo muuqaalkan hala sheer gareeyo nabadgelyo